shirkan wadatashiga ahaa ayaa ku saabsanaa mashruuca kasoo kabashada xasaradaha Soomaaliya oo ay fulinayaan wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta ee dawladda federaalka Soomaaliya. mashruucan ayaa waxaa markaasi gaar ah xoogga loogu saaraya abaaraha, fatahaadaha, anyaxa iyo cudurka COVID-19 waxaana markaasi dawladda Soomaaliya ka taageeraya Bangiga Adduunka. مسؤولين كسعودية وزارة قرشين دولة قبلات كجبلان هي شقالها أقاسم واحد يدا وزارتها دولة قبلات كجبلان أي قوب جوجها كواس وآراء ذا كديبنا أي شركة أنتي والسعودية مناسبة فريتان كشركة وحاورين هذا الكوبان كسو جيدي عبد واحد محمد دغني أقاسمها وزارة قرشين دولة قبلات كجبلان وحن هل كان اسكوون بدينا عن كتشنا مشروع عاص oo la yiraahdo mashruuca kasoo kabashooyinka xasaradaha sida daadka iyo abaaraha iyo ayixi iyo koronaha iyo wixii la mid ah mashruucan waa mashruuc taageerayo Bangiga Adduunka wuxuuna ka dhaqan galayaa dawlad goboleedyada ah Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. halkan maanta waxaan u fadhinaa qaybtiisa oo Jubbaland marka waxa weeye waxa la eegayaa waxyaalihii kaabayaasha dhaqaalaha ee ku waxyeeloobay xasaradii la soo maray ama dhibaatooyinka la soo maray daadka iyo abaarihii iyo ayixi iyo koronihii ay ka mid ahaayeen marka wasaaradahaas ayaga ah saraakiishoodii baa nala joogta wasaaradda qorsheyntuna way gudoominaysaa waxa xusid mudan inay nala joogaan dad ka socda mashruucan qaybtiisa federaalka oo ka socda wasaaradda qorsheynta ee federaalka iyo wasaaradda maaliyadda ee federaalka waxaan rajaynayaa markuu bilowdo inuu 4 sano u socdo isla markaana waxyaalo la taaban karo oo bulshada wax ku ool u ah أسد يوسف قنيري وأحمد حريركا ديق بحياشا وزارة قرشين حكومة فدرالك الصومالية أي كهذا ليا وجدد مشروعا وزارة قرشين وزارة مالية وحير فدرالة وفتي كوبان وأنا قابلها waxaan soo gaarnay magaalada Kismaayo state Jubbaland anagoo ujeedadayna guud ay tahay inaan wada tashi ka sameeyno wada tashigaasna ku saleysan yahay sida looga hortagi lahay xasaradaha lagu soo noqnoqdo ee ka mid yihiin fatahaadaha ee ka mid yihiin maaragtay abaarta iyo anyaxa iyo arrimahaas oo kala camal oo la mid ah wada tashigan waxa lagu saleyn doonaa mashruuc oo dawladda dhexe dawladaha xubnaha ka heesla wadaan oo la yiraahdo SCRP ama loo yaqaan Somalia Crisis Response Project hadduu ilaahay yiraahdo ilaahay nagu guuleeyo 3 maalin 4 maalin baan joogaynaa oo aan ugu talagalnay inaan ka mid dhalino wada tashigan oo isla fahanno sidaan u baari doono insha Allah waqti yar kadibna waa soo noqon doonaa daafurkii baan isugu soo noqonaynaa markaas shirkan ayaa socon doona muddo 4 cisha kaas oo looga hadli doono arrimo muhiim ah oo quseeya xaaladda waddanka gaar ahaan fatahaadaha dhibaatooyinka dadka u geystay abaaraha anyaxa iyo sidoo kale cudurka COVID-19 kaas oo adduunka oo dhan saameyn xoogan ku yeeshay aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.